wax weyn ayaa la soo bandhigay oo aanu maarata uga mahad celinayno wasaaradda deegaanka iyo biyaada qorshahan ay soo bandhigtay oo Soomaaliya ay ugu biirayso suuqa kaarboonka waa arrin nagu cusub oo maarata aan aad iyo aad uga hambalyeynayno ku biiridda Soomaaliya inay ka mid noqoto wadamada kaarboonka ama iibgeeya ama yareeya intaba inta ka bacdi أنا أقول الله يمجع بريفت سكترسكا حاسلين هاي واحد بدن أيام صواغ بنسيدا وسير بشير أو شيء جايبه ودن كاني وحيابها لجوبة بادي وحكم ذا بريفت سكترسكا قيبه السكالة الدول ومارتا هير كاسو جارسيي وأنا وجم هذا اللي إن هذا نخرج السويد دونه هي رجينا شركة هان الأساس حقيقة إن عبي هذا خران وجش غيرني وواحد بدن وحيابه الله أساسا شركة هان أما تمرتا أما مارتا بنجيدا أما غاز كا مارتا صوص دشية وحلا أساسا هو إن عملنا وحلا قبته ودرتي لشري لجا كافته أمو pollution كتير هذا بدناي متوردوا أي بحين شيرين ليريو ودكتهين المجال هذا حمر مركز شركة هذا كورنتا الأساسي waxa motor ka shidnaa jiray guri walba agtiisa waxaan hubaa inuu motor guuxiis inuu maqli jiray oo maarta motorka ag shidnaa jiray hayeeshee shirkadihii markii la midoobay oo la isku geeyay waxaan soo saarnay in aanu ka saarno magaalada wixii guuxay ama pollution hay oo aan geeyno ama magaalada daafaheeda sidoo kale aan sameeyno solaris ama maarta green energy aad u tiro badan walow aan shirkada beeko adaan nahay aan ugu badan nahay green energy-ga sida wasiirka maarta tamarka maxamedna oo saaxiibkay sheegay hadda hay'adihii oo dhan baa la dhacaya iyo ganacsiyadii iyo caafimaadkii oo dhan la dhacay laakiin annaka hore u bilownayo wax ku dhow 70 megawatt ayaanu maarta ayaan launch gareynay haddana waxaan rajaynaynaa inaanu ka sii badino oo ay Soomaaliya noqoto waxa tamarta ay isticmaalaysaa tamarta cagaaran inay noqoto ayaan rajaynaynaa midda kale waxyaabaha loo aasaasay waxa kamid ah in la dhimo qiimaha waad ogtihiin markii korontooyinku xilligii shirkadaha la mideynayay oo la isku geynaynay $1.20 ayaa la gadayay halkii kilowatt maantana madaxa ugu sareeya waa 0.41 ilaa 0.30 inta u dhaxaysa weeyaan marka waxaad arki kartiin halkaas wax weyn inaan ka qabanay waxaan rajaynaynaa hadii taakulada maarata wasaaradaheena dawladda oo ama maarata deegaan kale ama maarata tamarta leh iyo hawlahan ay naga shaqeeyaan World Bank hadii ay lagu dhiiri geliyo private sector-ka inaanu geyn karno meesha ugu hooseyda oo wadamada maarata wadamo badan oo Afrika aanu ka hoos marin karno reliability-ga dhinaca tamarta waad ogsoontihiin xaqiiqatan wadamo badan oo Afrika ayaad ogtihiin waad ka wada qabtiin markii korontadu tagto aadan garanayn meel aad u cabato ama waqti dheer iska maqnaanaysa Soomaaliyana waxa laga yaabaa iyadoo waliba accident-yadu iska badan yihiin inay waxa ay ka maqnaato haday tagtaba aanay dhamayn wax aan maarata aan 30 daqiiqo aan dhamayn sida la ajirgeeda iyadana waxaanu rajaynaynaa inaanu sii joogtayno waxaan sidoo kale wasaaradda maarata deegaanka iyo biyaada kala qayb qaadan doonaa dadaalada loogu jiro Soomaaliya cagaaran ayaanu ka qayb qaadan doonaa waxaan rajaynaynaa in aan maarata noqono wadamada ugu horeeya horta Soomaaliya markii xaqiiqatan la sameeyo pollution badan ma sameeyso pollution badan markii adduunka waxyaabaha warshadaha wadamada warshadaha la fiiriyo waxa aan sameeynaa waa waxaan 10% aan dhamayn hayeeshee waxaan rajaynaynaa intana inaanu sii reduce gareyno oo aan noqono kuwa ka faa'iideysta wadamadu ay sameeyaan inaan anagu gadno keeno aan maarta dakhli badan oo nooga soo xaroodo ayaan rajay doonaa insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtigu waa iska gabagabo hadal badan siima geli karo aad iyo aad hortay baa la yiri wixii warahayo dhan intaas ayaan ku soo koobaya aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh